kulanti wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedina heesa waxa u dooran wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kulamo ka wada magaalada Baydhabo dowladda Qatar oo lagu eedeeyay inay ku lug leedahay qaraxyada ka dhaca Soomaaliya maamulka Puntland oo ka hadlay war uu qoray wargeyska New York Times xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo sheegay in nasiib xumo ay tahay safiirka Qatar uu ku lug yeeshay qaraxyada dalka ka dhaca Muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari oo sii deysay xubno ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ka codsatay Puntland xildhibaan sheegay in Muqdisho ay dhiban u tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya odayaasha Dhuusamareeb oo ku baaqay in beelaha Galmudug ay ka qayb galaan shirka ka furmaya Dhuusamareeb xildhibaano ka tirsan Puntland oo sharci darro ku tilmaamay xarig loo geystay xubno dhisayay wadada bartamaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari golaha aqalka sare oo maanta aqrinta koowaad marsiiyay hindisharciyeedka shirkadaha iyo UK oo ra'iisul wasaare cusub dooratay waaga daawadayaal intaas waxaan qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idinaysa kuwooda ugu door karoon haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena cusub ee barteena YouTube-ka fadlan subscribe oo gujiga badalka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka markaan soo galina barteena YouTube-ka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan markan warkii oo faahfaahsan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed maanta gaaray isagoo halkaas kulamo kula qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo mas'uuliyiin kale ayaa si diiran u soo dhaweeyay wafdiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee maanta gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay maanta ka furay shirka madasha arrimaha bini'aadanimada ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa furitaanka madasha ka sheegay inay muhiim tahay in maskaxda ay shiilaan ka qaybgalayaasha madasha arrimaha bini'aadanimada ayna fikirkooda isu geeyaan kana soo saaraan natiijo wax ku ool ah oo ka qayb qaadanaysa hagaajinta xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo horboodaysa mashruucan madasha arrimaha bini'aadanimada dalka oo looga hadlayo xaaladda bini'aadanimo ee dalka iyo qorshaha lagu horumarinayo mashaariicda dhanka bini'aadanimada ayaa waxa la sheegay in kaalin firfircoon ay ka qaadanayso iyadoo la kaashanaysa dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir oo bilihii ugu dambeeyay waday sidii dib loo eegi lahaa qorshe ballaaran loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay dalka gudihiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda furitaanka madasha arrimaha bini'aadanimada dalka oo ka qayb galayaan wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyiin ka socota dowlad goboleedyada dalka iyo qaar ka tirsan xubnaha deeq-bixiyaasha ee ku sugan Soomaaliya golaha aqalka sare ayaa aqrinta koowaad marsiiyay hindisharciyeedka shirkadaha golaha aqalka sare ayaa maanta aqrinta koowaad marsiiyay hindisharciyeedka shirkadaha kaas oo ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dalka sharcigan warshadaha haddii uu meel maro waxa uu saldhig u noqon doonaa isku xirka ganacsiyada dalka iyo kuwa suuqyada caalamka fududeynta maamulada diiwaangelinta shirkadaha ganacsiga iyo maalgashiga waxaana kulanka maanta ay golaha aqalka sare ku yeesheen xarunta golaha aqrinta koowaad ku marsiiyeen hindisharciyeedka warshadaha dalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa furay kulanka oo shir gudoomiyay waxaana uu akhriyay ajandaha laga doodayo maanta ahmiyadda uu leeyahay dalka ayuu ka ekaa maadaama uu xeer hoosaadku uu yahay in ka doodista iyo su'aal weydiinta ay tahay akhrinta labaadda sidaas daraadeed injineer Cabdullaahi Cali Xasan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ayaa ka hor akhriyay heerarka uu soo maray hindisharciyeedkan waxa uuna sheegay in la soo galiyay la tashiyo fara badan oo ka mid ah hay'adaha dalka kala fadhiga shanaad kulankiisa 12aad ee golaha maanta waxaa soo xaadiray 29 xubnood iyadoo uu shir gudoominayay gudoomiyaha oo ay heliyaan labadiisa ku xigeenno waxaana soo xiray gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi dowladda Qatar ayaa lagu eedeeyay in ay ku lug leedahay qaraxyada ka dhaca Soomaaliya wargeyska New York Times oo warbixin ka qoray loolanka qaliijka iyo saameynta Qatar ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Qatar ay ku lug leedahay qaraxyo ka dhacay Soomaaliya ganacsado u dhashay dalka Qatar oo saaxiib dowlaha Ameerika Qatar
ayaa la dhageystay teleefon uu kula hadlay safiirka qatar ee dalka Soomaaliya isagoo uu sheegaya weerar qarax oo ka dhacay magaalada Boosaaso ay ka dambeeyeen maleeshiyaad fulinaya danaha qatar ee Imaaraadka in uu ka cararo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo uu maamulo dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. wargeyska ka soo baxay dalka Mareykanka ee The New York Times ayaa daabacay in ay dhageysteen sheekada dhex martay ganacsade qadari ah iyo safiirka qatar ee dalka Soomaaliya. bambooyinka iyo dilalka waan ognahay kuwa ka dambeeya, ayuu yiri ganacsade Khalifa Kayd Al-Muhanadi 18 May ee sanadkan toddobaad kadib qarax ka dhacay Boosaaso. ganacsadaha ayaa intaas raaciyay in qalalaasaha uu ahaa mid loogu talagalay in dadka ka jooga Imaaraadka Carabta ay magaalada Boosaaso ka cararaan oo aysan dib dambe u cusboonaysiin qandaraasyada ay ku joogaan dekedda Boosaaso. ha ka saaraan Imaaraadiyiinta meesha oo aysan cusboonaysiin qandaraasyada, anigana waxaa keeni lahaa qandaraasyada halkan Dooxa, ayuu sii raaciyay ganacsadahan oo la hadlay safiirka qatar ee Soomaaliya. haddii arrintan sax tahay, waxa ay banaanka soo dhigaysaa tartanka u dhaxeeya dalalka khaliijka ayna sii holcinayaan dhibaatooyinka ka jira geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. markii wax laga weydiiyay ganacsade Al-Muhanadi iyo dowladda qatar sheekadan aysan ka hor imaan, balse xukuumadda qatar ayaa ku dooday in Muhanadi uu yahay qof rayid ah oo aan ka tirsaneyn dowladda qatar. hase yeeshee wada sheekaysiga ganacsadaha iyo safiirka ayaan safiirku marnaba muujin inuu diidan yahay in uu door ay ku leelato dowladda qatar qaraxyada ka dhacay Boosaaso oo sidaas baa weerarada in lagu geeriyo iyaga, ayuu safiirka qatar Xasan bin Hamza Hashem ugu jawaabay ganacsade Al-Muhanadi. saaxiibadeen ayaa ka dambeeyay qaraxyadii ugu dambeeyay, ayuu yiri Mr. Al-Muhanadi u xaqiijiyay safiirka. ganacsade Al-Muhanadi ayaa aad ugu dhow amiirka qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, waxaana la hayaa sawiro labadooda oo isla jooga sida ay sheegtay hay-ad sirdoon ah. Al-Muhanadi waxa uu la safraa amiirka qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sida wargeyska New York Times uu daabacay. haddii ay qaraxyada Boosaaso ee gobolka Bari ahayd in Imaaraadka lagaga saaro Boosaaso, waxaa shaki gelaya in weerarkii bishii Febraayo lagu dilay madaxii dekedda Boosaaso oo ay maamushay Imaaraadka Carabta. bishii Febraayo sanadkan, 2 nin oo hubeysan oo isu ekeysiyay kalluumaysato ayaa toogasho ku dilay maamulihii shirkadda maamusha dekedda Boosaaso ee gobolka Bari ee laga leeyahay Imaaraadka Carabta, iyo dhaawac 3 qof oo kale oo shaqaale ah loo geystay. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas, waxaana afhayeen u hadlay uu sheegay in dhowr jeer oo horay ay u digeen shirkadaha ajnabiga ah ee haysta dekedaha. 2 sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa muuqday loolan iyo xifaaltan ka dhaxeeya dowladaha Imaaraadka Carabta iyo qatar, iyaga oo ku tartamayay inay awood ku yeeshaan dalka Soomaaliya. sanadkii 2017, dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ayaa xiriir ku jiray dalka qatar, iyagoo ku eedeeyay inay taageeraan kooxaha argagixisada. hase ahaatee qatar waa beenisay eedeyntaas, waxaana wixii xilligaas ka dambeeyay isbahaysiga Sacuudiga hogaaminayay ay xayiraado iyo cunaqabateyn ku soo rogeen dalka yar ee qatar. dowladda Soomaaliya oo horey u sheegtay inay mowqif dhexdhexaadnimo ka qaadatay khilaafka khaliijka ayaa loo arkaa inay weli u xaglinayso dhanka qatar oo ay taageero dhaqaale iyo mid militari ka hesho. waxaana bishii Abriil ee sanadkii 2018 ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen lacag gaaraysay 9.8 milyan oo dollar. lacagtaas ay keentay diyaarad laga leeyahay Imaaraadka Carabta. waxaa saraakiisha Imaaraadka ku sheegeen in lacagtaas ay ahayd mushaarka ciidamo iyo saraakiisha ay ku tababareen xerada Imaaraadka ku lahaa Muqdisho, waxaana xilligaas Imaaraadka joojiyeen taageerada ciidamada kadib markii ay ka caroodeen qaabkii loola dhaqmay ee lagu xanibay diyaaradooda laguna wareegay lacagihii ay wateen, taas oo ay ku tilmaamay mid xadgudub ku ah diblomaasiyadda caalamka. dhinaca kalena, dowladda qatar ayaa beenisay warkii lagu daabacay wargeyska New York Times, waxaana ay sheegtay ganacsadaha lagu magacaabo Khalifa Al-Muhanadi inuusan ahayn la taliye islamarkaana wakiil u ahayn dalka qatar.
waxaan ku sameyn doonaa baaritaano ninkan waxaana uu qaadi doonaa mas-uuliyadda hadaladii uu sheegay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda qatar. dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa ugu baaqay labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inay baaritaan ku sameeyaan warbixin uu qoray wargeyska New York Times oo ku saabsanaa taleefan la dhageystay oo ahaa wadahadal qadka taleefanka oo dhex maray ganacsade u dhashay qatar iyo safiirka qatar ee Soomaaliya kaasoo ahaa in qarax ka dhacay Boosaaso ay ka dambeeyeen koox fulinaysay danaha qatar si imaaraadka carabta uga cararaan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in muddo ay qabeen tuhunka ah in meelo ka baxsan dalka laga soo abaabulo falalka xasiloon darada ee Soomaaliya. xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in nasiib xumo ay tahay in dowladda qatar ay ku lug yeelato qaraxyada iyo weerarada ka dhacda Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa sheegay in nasiib xumo ay tahay in safiirka dowladda qatar uu ku lug yeesho qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Muqdisho. waxa uu sheegay in ay tahay wax laga xumaado in safiirka dalka qatar ku sugan Soomaaliya uu ku lug yeesho dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhaca Soomaaliya sidoo hadalku u dhigay. warkii oo idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka wanaagga inta